السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة أصحابتي القالية كحران يوتيوب كفحيلكي ولاشين كحيل عبد الله مقعد كحيلكي آدي آذا إسلامية ما أنت وحقرب في مدينة كلية محمامين صوت أصف رسالة وحيت هاي وحنا بنقولها ما عندي درين كان هذا قلبي يعني مستحيل إنه بديزي أيام أنت وصف رسالة إن شاء الله تعالى أنا وحيدين شيء دون محمامين كسروا محمامين يوتيوب كان إن شاء الله أصحابنا وح مركز أولنا إن لو ذاك إحنا هذه لا يرادون marka hore soo dhawaada asxaabta farxilaki maanta martiya ku ah jannad kan marka hore waxaan idinka codsanaynaa in laagta commentiga iyo share-ta aad uga caawisaan fadlan hadaan ugu cusubtaa oo muuqaalkan ugu horeeyo subscribe jannad kan dheh gambaleelkana furo maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno youtuberada soo badanayo iyo ayagoo dadka qaar u isticmaalayaan siyaabo qaldan dadka qaarna sidii la rabo u isticmaalayaan YouTube waxaa loo soo furtaa saddex siyaabood oo YouTube loo furtaa kow inaad ku caabaxdid iyo inaad dakhli ka samaysid nin walba marka ujeedadu u furtay iyo ujeedada YouTube u soo galaasaa yaqaan laakiin waxaa muhiimada ah in YouTube runta laga sheego runta laga abaaro anaga caalamka dhan YouTube laga isticmaalaa wadana YouTube ama YouTuber lahayn ma jiro laakiin Soomaali ahaan ka hadlaynaa ayantan dad waxaan ugu soo batay tiro YouTuber ah oo faafinaya xumaanta tiraas YouTuberada waxay dhiirigelin ka helayaan YouTuber ka subscribe badan ka like badan ka views badan tusaale YouTube oo maanta soo baxay ama laba bil jiro viewskiisa haduu ugu bato waxa waaye waa ismaqaana waa 200 300 400 ugu badnaana 1000 waay haduu YouTube kaas 1000 qofood muuqaal soo dhigo ugu yaraan 600 ee daawato oo xumaan ah hadii aad reaction ka bixinin adoo 200 ama 300 oo subscribe ama views haysto ma soo caabix lahayn dadka xumaanta faafinaya waxa ugu badan dadka subscribe-ta ama views ugu badan waay marabna dadka xumaanta faafinaya channel-kooda inaan magacaawno dadka faafinaya ama reactionada ka bixinayna marabno waxaadna dardaaran guud iyo bogaadin inaan iskugu darno YouTuberada dhamaan marka YouTuberada oo bandiyada jaaliyada maxalla riwaayadaha reactionada oo mahad celinayna waxaan idin leenahay hore u socdo waqti fiican idin waqti wanaagsan ay idinina waxa la muhraan in dadka xumaanta wado xumaantooda aan la faafinin reaction laga bixinin maxaa lahaa ugu yaraan hadda muuqaal ay fiirsanayay maanta xumaan oo ku saabsanay ugu yaraan waxa daawatay intaas oo kuna daawatay kun ilaa 100 qof dislike saartay oo muuqaalkaas kuma faraxsaneen 100 like na 100 qofaadna like amle saartay marka waxa muhiim ah in dadkaasi YouTuberada ay soo caan bixiyeen hadda ka bacdina ay ka fiirsadaan ay ka ruuxoodan ay ka dhidhiyaan marka waxa idin leeyahay farxiyo waxa dadkaas uu direena maxaa la baax oo ah in xumaanta ay ka soo yaro dabcaan YouTube waxa waaye dad badan hadda views ka sameeyo dad ugu yaraan 2 sano ku jira 3 sano 4 sano qolo laba bil qolo hal sano waa la isku jiraa laakiin muhiimadu waxay tahay in YouTuber hadii aad tahay YouTube-ka aad dhan ka soo gashid fikirtid maskaxda ka dhalaaleysid YouTube aad ka soo muuqato laakiin lagu baran xumaan asxaabta YouTube ku soo biiro farxiyo oo banaangeeda jaaliyada maxaa leedahay wallahi ani ahaan horta aad iyo aad uga qirooday sababtoo ah aniga waxaan ahaa islaan waxaan haysanaa diin islaam nabigeena waa Maxamed sallallahu alayhi wasallam ma ahan in aan dhaqankaada raacno ma ahan in aan waxyaalo diinta islaamka ee raali ka ahan aan sameeyno magac ilaahay ku hayo maalin ilaahay ku hayo soo inaad ka shaqeysato ugu talagalsho meeshan ama aad ku soo caan baxdo laba mid qofna wuxuu u soo galaa ama dhaqaale meeshan ka heshaa qofna wuxuu u soo galaa ama magac meeshan ay yani aad ka heshaa soo dad badan oo magac laha jiro cilmo waaweyn ay jirto sida hadda Sheekh Mustafa Xaaji Nuur oo kale waxa uu ku soo caan baxay ama magaciisa heerkaas oo gaarsiiyay waa diinta ilaahay wuxuu maxay ahayd faafinaya waxyaalo wanaag badan maanta qofka maxay ahayd magac fiican oo maxay ahayd looga jecel yahay dadka inuu jiro uma leen maayo aniga waxaan kula talin lahaa dadka ku raadinaya fiiska xumaatada qurax walba ilaahay ku qoray maalintii hooyada ay ku dhashay yani uurkeeda aad ku ahayd 4 bilood
iyo 10 habeen ilaahay wuxuu kuu qoray adiga maxay ahayd wixii aad adduunka dushiisa aad ku isticmaalay hadaa magac yeelan lahayd haddii aad lahaan lahayd haddii aad maxay ahayd wax walba ilaahay markaas kuu qoray ma ahan marka adiga ilaahay wuxuu kuu qoray inaad helaysid og haddana inaad xumaan wax ku raadisaa kuwaas daasa ugu gudbo waxaan aniga aan si qaas ula talinayaa soo ani ahaan farxi ahaan ma fiirsado wallahi ma fiirsado YouTube-yada waxa xunka soo geliye iska daa inaan subscribe dhaho ama like oo saaro soo waxba kuma darsado waxa la dhahaa qofka dambigiisuna asoo ku koobnaada ron kan soo geliye iyo kan reaction ka bixinayo oo every time yani faafinayo wallahi dambigooda waa isku mid ani waxaan dhihi lahaa marka yani reaction laga bixin haddaan reaction laga bixin maxay ahayd views-kooda uusan badan xumaantu way yaraan lahayd laakiin haddii qof walba markuu waxan uu soo geliyo YouTube-kii oo dhan uu qabsado social media oo dhan uu qabsado hadduu Facebook yahay hadduu Instagram yahay TikTok hadduu dhan uu soo wareegayo soo kan kale muxuu isleeyahay qofka aan caqligiisa taamka ahayn wuxuu leeyahay kaasba waxaa soo helay adigana waxaan raadi waxaa laga yaabaa in muuqaaladaas oo kale tusaale oo kale janalada waaweyn laga hadlaa muuqaalkaaga ama xalaa janalkaaga inay ku xiran yihiin caruur dad oo dumar habeen waxaa lahaa rag iyo dumar wax walbo laakiin ay u badan yihiin dhalinyaro wax ka yar 30 sano ama 20 sano ka yar inay u badan yihiin waa sidaa wada ognahay marka xumaantaas hadaa faafisid waxaa waaye in ay ka sameeyaan ay unugul tahay marka waxaa waaye qayb ka qaadanaysaa dambigaasna qayb ka soo gaaraysaa ma rabna inaad janal magacaawno laakiin guud ahaan dadka xumaanta soo geliya iyo dadka xumaanta faafiya waxaan ka codsanaynaa in ay u yara gaabiyaan oo tartiib oo alla ka cabsi ay ku dadaalaan asxaabta kale hadda YouTube-leeda oo barangeyda cajiibka riwaayadaha jaalanjada sameeyna waxaan u diraynaa bogaadin iyo hambalyo iyo waxa waaye guulo badan aan u rajeynaynaa mar walba waxaa laga rabaa inaad ku dadaashid waqtiga hadaa gelisid dad badanaa jiro YouTube-ku waa soo wada isticmaalayna horteena Soomaaliya isticmaali jirtay adduunyada inteeda kale waa laga isticmaalay marka u badna xumaan gaalada ruuxooda xataa xumaan uma isticmaalaan marka anagoo Soomaali haddana Muslim haddana Islaam intaa joognaa waa maya waxa muhiim al-umum in aan iska ilaalino oo alla ka cabsi ku dadaalno YouTube wax walba laga sameyn karaa YouTube waa leeyahay jaan buuxo reaction buuxo maxaa riwaayado kale maskaxda ka dhalaalay waxaysan qof keensanin inaad keensatid isku day marka waxay yeelajeenayna in tusaale talo waa dad idinka waaweyn dad naga waaweyn ayaa ay siiyay waa inaad qaadataan ku camal fashaan ugu dambeyntii insha Allah ta'ala waxaan leeyahay islaamnimada meel looga dhigin soo ani haddii maanta inaan xumaan sameeyo aan u bareero wajiga haddaan duubto waa kaa dhuunta adiga laakiinse qofka aan laga dhuumanayn waa Allah subxaanahu wa ta'ala marka waa inaan iska daynaa xumaanta waxaan waa adduunyo waa laga tagayaa waa ujeedin aniga muqdisho ku noolahay waxaa arkaysaa qoftaa ka soo kacay gurigiisa kasoo tagay isla caawa nabada ugu noqonaysaa haddana asagoo meeda reerkiisa loo geynayo ama isbitaalada laga helaayo war sidaasaa nolosha geeridu intaasaa u dhexeysa ayadoo og inaad dhimanaysid inaad xumaan ku dhaqantaa maxaa yani sababta kugu kalifta maxay tahay irsaaqad ilaaha leh waxaa laga yaabaa adiga fiyuuska maanta aad u ordaysid iyo heerka aad gaar isleeda adoon gaarin inaad dhimato haddii aad dhimatay Allah subxaanahu wa ta'ala maxaa la hortagaysaa waa waxba waxaa la hortagaysid ma lahan hadafkii aad lahayd oo maanta u gashay ma aadan gaarin kan oo maxay ahaydoo ilaahay subxaanahu wa ta'ala hortiisana wax wajiga uu ku yaala ma lahan sumcadarana waa ku dheer tahay qofka sidaas sameynaya sumcad kama lahan bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda waxaad wanaag ku weysan xumaan kuma helaysid ani waxaan dhihi lahaa hal iska daayo xumaanta waxaa la hadlayaa waliba gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha tihiin islaana tihiin Soomaaliya tihiin waxaan idinkaga baran sameynina dhaqanka Soomaaliyeed meel ha uga dhicinina dhaqanka Islaamka meel ha uga dhicinina anaga waxaan waxa la gelinayaa social media waxa ku fiirsanayo adiga diin islaam sheegana ma islaamiyana ku shirika Iran ilmahaaga ilmaha si dhalayna ku daawadaan laga yaabaa sumcad dar iyo magac xumo ka dhaxashin wiilasha Soomaaliyeed inta badan waxa uu baaqaynaa ogaw gabar waa kula dhalatay way ku dhashay way ku dhixi doontaa waa dhalin doontaa hadduu Ilaahay ku siiyo marka waxa muhiim
in gabar aad ilaaliso ee maaha inaad ku ciyaarto meesha ugu nugul waxaa waaye fisq ama fadhaad laga sameyn karana waa dumarka oo u nugul yihiin oo u jilicsan yihiin laakiin ma ahan in dhifnimadooda ama taageeradooda looga faa'iidaysto ogaab adina gabar waa kula dhalatay haddii aad gabar saamid wax ku samaysid tan kula dhalatay in lagu sameyn doono hamuugaan nafsiga waxaa waaye mar haddaad gashid mar masoo daahayo wuu soo degdegaa nafsiga ammaanka wuxuu kugu maqan yahay beri ahaasaa dambe aha moogi laakiin wuu kugu imaan doonaa waqti iyo waayahan waa kutusi doonaa alcumuum gabagabadaa joognaa asxaabteena waxaa ay leedahay waa mahadsantihiin waqti waxna rajeynaynaa fadlan muuqaalkaani haddii ay kugu tahay markii ugu horeeyay subscribe like share and comment dhiirigelin adinkaa noo waxaan rajeynaynaa hadda kun subscribe baa maroynaa in aad 50,000 100,000 aan gaarsiisaan waxba lama ahan marka maanta yaa loo helinin ay waxaan dhihi lahay samaanta waxaa waaye dadka samaanta jecel waxyaalaha wanaagga soo gelinayo ha loo heliyo soo waxyaalaha xumaanta markii aan u helino oo wax walbo aan ugu helino waxaa badanaya xumaanta cuqubadana haysataana waxay kamid tahay cara ilaahay nagu dhaceyso in si cara ilaahay nagu dhicin waxaan dhihi lahay aniga dadka xumaanta faafinaya bataatanba inaan la daawanin in aan reaction laga bixinin taladeeda ugu dambeysa waa taas ilaahay ha laga baqo hal ogaada in la dhimanayo sameeyay ka reaction ka bixinayo waa isku mid hal iska daaya marka insha Allah ani ahaan waxaan idin leeyahay inta fiican ha loo heliyo inta xunna yaaba la fiirin ba insha Allah aad u mahadsantihiin fadlan waxaan idin rajeynaynaa in like share comment aad ku dadaali doonteen wixii talo tusaale barnaamijyada aragtiin waxaa mar walba furo ama hagan oo commentiga fadlan aragtidaada waa noo muhiim laabta iyo sharetana waa lama huraan وبلا إن شاء الله waxaan kaloo idin ka codsanayaa inaad sii share gareysaan si uu u gaaro bulshada Soomaaliyeed dadka xumaanta reaction ka bixinayo iyo kuwa sameeynaya iyo kuwa daawan doonaba iskaga daayaan ilaahay ha laga baqo subhanahu wa ta'ala oo abuurtay oo neeftaana waxaan maanta kugu jirto waa neef daqiiqada laga siibi karaa marka waxaan dhihi lahay walaalahayga qaaliga insha Allah ta'ala ha loo heliyo diinta islaamka waxa ay nafarayso ha lagu dhaqmo waxaan diin islaamna farayna ha laga leexdo waxaad islaamnimo ku weysay ku helimaysid fasahaad insha Allah ta'ala hadalkeeda soo gabagabeynaya aad u mahadsantihiin dadka aan idaawanayo waxaan idin leeyahay habeen waana wanaagsan insha Allah waxaan noo rajeynayaa cimri dheer iyo cibaado suuban ilaahay fasahaadka iyo balaayada maraysa magaalada saa u dhex wareegaysana ilaahay naga qabto insha Allah ta'ala muuqaalka xigo sidaas iyo nabadgelyo